waxay inuu yiraahdo xukuumaddu waa dhacday marka taas waxaan ogsoonaa in ay qaran dumis u yahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay u jeedaan waxaan anaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aan sheegnay wasaarahan uu sheegay in doorashooyinka waqtigeeda ay ku dhacaan sababtoo anaga wasiir amni ahaan xil ay iga saaran dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda loo qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talagalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah dilaysta technical duuyma waag Sheekh Shariif oo yimaad madaxweyne hor Sheekh Shariif xasan Sheekh labada bixlabana ahay waqtiga dib ay ku dhacdo waxba laga ma qabo laakiin laba sano extension la qaadaha marka waxaan ka dhidinay waxaan u shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed aan ahay anaga wasiirne uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wixii xaq ummadana helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorashada waa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalay doorasho aad doon haddii Ilaahay yiraahdo qofkii ku taamay inuu 2 sano ku darsado sida maanta xukuumadda ay ka dhiman tahay 3 bil 4 bil gudaheeda xukuumadda la rido xukuumadda la soo dhisaa taas suurteed mid ku fikiraya waxaan leeyahay iimaanka Ilaahay ku bulsho ma dhacayso mana dhici doonto waana maastiin assalaamu calaykum mudana wasiir extension waa cid wadaya waayo guddoonka baarlamaanka wada extension golaha shacabka wado guddoonkan hormuudka ah taasna dhici mayso dalkan doorasho aada waqtiga loogu talagalay doorasho ku aada doorashadana si wada ogol ah dowlad goboleedyada xubinta ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorasho inuu aado marka guddoonku waxaan leeyahay maanta nasiib daro waay wax taariikhda baalmadow ka gala waay in ayadoona hal xildhibaan hadlin ayadoona ajandaha unu ku jirin xukuumadda xilka noqoshada ayadoo intaas lahayn inuu yiraahdo guddoonka xukuumadda cod u qaado waa wax lala yaabo xildhibaano kale ay gadameen doonto waana mahadsantihiin laakiin xildhibaan saacad wasiir maxaad u doodi weyseen oo aragtidiina waxaad qabtaan maadaama uu guddoonka ogolaa maxaad hor istaagteen golaha hortooda waxaan ogaa dooda haddii la furnaan saana ku dhamaaleed halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacdo kuma dhigin intaanu rabin marka waxaan anaga u doodaynay aan doodana ahayd inuu warkiisa toos u yiraahdo oo alla ma hadiis waxaan ka filayno toos u yiri marka intaan leeyahay marka anaga inaan qaldan ha ogaadaan sharciga hogaansanahay waxaan u doodayna intaas ahayd tii inuu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto marno in hore loo socdo la rabaa insha Allah biidnillah kariim waxaan ka shaqeynaa dalkan doorasho si uu aad lahayd si ummadda Soomaaliyeed isku kalsoonad 4 sano kastana waxaa ka dhaco dalkan 2000 ilaa hadda 4 sano kasta doorasho dhacaysa biidnillah kariim marka xukuumaddu extension ma ogolo extension ma ogolo xukuumadda horena wasaaraha u shahaadana waa kula cilnaa xukuumadda ma ogolo ma ogolo extension doorasho dhacaysa doorasho ku dhacaysa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof hal cod ma dhici karto guddiga doorashooyinka halkan ay timid xalimiyay waxayna tiri gudoomiyaha doorasho waxa u baahan waqtigana ma cad sax ka bil sheegatay iyo 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas mar inuu gudaha sii galo waa maasantiin kaasina daawadayaal wuxuu ahaa wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo ka warramay wixii maanta golaha ka dhacay ila jooga sidoo kale hadda waxa shirjada qaban raba oo warbaahinta isugu yeeray xafiiskiisa xarunta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqi doona sida qolwadanada inoo xaqiijiyeen kulankii iyo natiijadii codkii la qaaday ayuu gudoomiyuhu ku dhawaaqi doona xafiiskiisa ayaa warbaahinta loogu yeeray nala jooga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta halkan gudoomiyuhu cod u galiyay kadib markii sida uu sheegay gudoomiyuhu ay xukuumaddu ku fashilatay dhammaan wixii loo egmaday ee doorasho dalkan inay ka qabsoonto iyo howlo kale intaas kadib waxaa bilowday buuq ay sameeyeen qaar kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya waxaan ku sii jeednaa xarunta golaha shacabka gudoomiyuhu uu ka leeyahay iyadoo warbaahintana